halkani waa wargeyska geeska Afrika daawadayaal halkani waxaanu idinku soo gudbin doonaa waxyaabaha haweenka ka qosliya inta ay jiraan daada hal sano jirka ilaa 60 jirkooda qosalka iyo farxaddu waa shay dabiici ah oo ku abuuran aadamaha koonka ku dhaqan farxadda iyo noloshu waa laba shay oo isbarbaryaala oo mid kasta oo ku yimaado duruufihiisa gaar ahaaneed haddaba waxa isweydiin leh waa maxay waxyaabaha ugu waaweyn ee haweenka ka qosliya marxaladaheeda nololeed ee kala duwan khubarada arrimaha haweenka ku xeel dheer waxa ay ku soo ururiyeen waxyaabaha haweenka ka qosliya haweenaydu marka ay sanad jirto waxa ka qosliya wax kasto ay aragto ama ay dareento afar jirkeeda waxa ka qosliya dadka waaweyn markasta oo ay la ciyaaraan 8 jirkeeda ilaa 14 jirkeeda waxa haweenayda ka qosliya hablaha ay saaxiibka yihiin 14 jirkeeda ilaa 16 jirkeeda haweenayda waxa ka qosliya dardaaranka hooyadeed toobka ay xidhato habka ay timaha u dhisato iyo fikirka ay guurka iyo dhalmadaba ka haysato 17 jirkeeda ilaa 22 jirkeeda waxa ka qosliya hablaha ay isku filka yihiin ay sir wadaaga yihiin ee ay kaga wanaagsan tahay labiska iyo hubqaadka 22 jirkeeda iyo 25 jirkeeda waxa ka qosliya dhacdooyinka jacaylka sheeko ama haasaawe ee dhexmara dhalinyarada rag iyo haweenka waxa sidoo kale isla waqtigani ka qosliya wax kasta oo ka qosliya midka ay jeceshahay 25 jirkeeda ilaa 27 jirkeeda waxa ka qosliya sheekooyinka uu ninkeedu uga sheekeeyay iyo habnololeedkiisii hore 30 jirkeeda waxa ka qosliya faalooyinka ama tibaaxaha maada ee ka soo baxa afka caruurta 40 jirkeeda haweeneyda waxa ka qosliya gabadha daada yar ee ka daba dhacday quruxda iyo jalaqsanaanta iyadoo haddana la tartamaysa oo doonaysa inay gaadho 50 jirkeeda waxa ka qosliya fahamka ay inantu ka haysato nolosha waxa kale oo in badan ka qosliya aragtida ay ka qabto ninka qaba inanteeda ugu dambeyntii 60 jirkeeda waxa haweeneyda ka qosliya dhammaan wax kasta oo ka qosliya caruurta ay ayeeyada u tahay qormadani waxa diyaariyay Kamaal Axmed Cali waxaana la socodsiinayaan anigoo taajira tan iyo kulanti dambe waa geeska Afrika oo leh nabad